الله ayaanu mahad celinaynaa oo naga dhigay ummad muslimiina naguna kulmiyay xafladan qiimiga badan ee muddada dhowrka bilood ay ugu socotay tababarka uga socday ciidankan dhalinyarada ah qiimiga badan Allah ayaan u mahad celinaynaa oo noo suura geliyay alxamdulillah ayaan leenahay waxaan rabaa inaan amaano oo waa mahadsantiin aan iraahdo taliyaha booliska iyo saraakiishii ciidankan dhalinyarada sidaan u tababaray ee waqtiga geliyay waxaan leeyahay waa mahadsantiin waan idinku amaanaa runtii dadaalkiina iyo hawsha qiimiga badan oo dalkan guud ahaan aad u qabateen gaar ahaan Hirshabeelle si gaar ayagana waa u amaanaya runtii dhalinyarada u dul qaadatay tababarkii ee waqtigii 9 saac iyo 10 saac la soo kicinayo biitiga ha ahaato maaragtay tababarka qaybiisa kala duwan u adkeystay waxaan leeyahay waad amaanantiin runtii waana maaragtay guulaysateen waad ogtiin saaxiibadii rag badan oo kamid ah qaar adkaysa waayay tababarka mana ahan goobtan kaliya goob kasta waxay u baahan tahay dulqaad aad ku soo gaarteen meeshan sabar aad ku soo gaarteen adkaysi aad ku soo gaarteen runtii maanta farxad ay idin tahay annagana farxad ay noo tahay askari waa aqaanaa tababarka waa soo wada marnay maalinka tababarka loo xiraayo farxad weyn ay u tahay annagana saad idinku u faraxsantiin ayaan u faraxsanaa maanta farxad weyn idin ma ahano annaga saad u faraxsantiin aan u faraxsanahay in dhalinyaro da'daana qiimigan leh naftoodi iyo waqtigooda u soo horay dadkoodi iyo diintoodi iyo deegaankoodi siday ugu shaqay lahaayeen ee cadawgan ku soo duulay ee dalalka kaleentood ka yimid dalalkoodi dambiga ka soo galay ee aan diintana u turayn dadkana u turayn duminaya dalkan ku soo duulay inaad ka difaacdiin oo naftiina iyo waqtigiina gelisiin sidaad u go'aansateen waa idinku amaana runtii walwalo labo saddex ha guulaysato runtii waa idinku amaanayaa go'aankaad qaadateen waa go'aan geesinimo leh dufcadaanu sida saraakiishii wasiiradu u sheegeen waa dufcadii shanaad ee tababarka ka soo baxayso daraawiishta dawladda Hirshabeelle rag idinka horeeyay meel wanaagsan ay keeneen deegaano badan laga xoreeyay cadawga maanta Muqdisho ayaa laga baxaa waxa la tagayaa Gaalkacyo iyo beledweyne Feerfeera la tagaa si nabad iyo cadawga laga walwaleyn inta dhimano galbeedka ku dhimano waa la daba kacaa runtii idinka meel fiican idin joogtaaho rag idinka horeeya meel fiican keenay raga ka bilaabay xabada xamar ka soo bilaabay raga xabada ka bilaabay ee deegaano badan oo maanta xur oo nabadgelyo lagu maraayo ayay naftooda iyo waqtigooda geliyeen inay xur noqdaan maanta dadkii deegaanadaas la xoreeyay joogay haday horumar tahay haday tahay muxuu ahay xurriyadii haday tahay caafimaad haday waxbarasho tahay nolosha ka jirto runtii waa nolol aad u wanaagsan shala dhibaatada ay dadka ku haayeen waa laga dul qaaday inta dhimanaan rabnaa inaan marka xooga isugu geyno waxa la idinka rabaa idinkuna inaad hormuud u noqotiin dhalinyaraatiin waad u caaboontiin da'deedii aad ku jirtiin maantana fursad aad u hesheen dalkiina inaad difaacdiin waa la idin dhameystiraa agabkii dawladda ayagu tala gashay haday dareesta haday hubtayba qalabayntiina waa idin dhameystiran tahay maanta waa inaad cadawga gacanta la gashiin waxaan idinkula dardaarmaa marka ugu horeysa Allah inaad ka baqdiin qofaan Allah abuurtay ku xireen guul ma gaari karto mid adduunyada ma gaari karto mid aakhirana ma gaari karto koow Allah inaan isu dhiibnaa nagala rabaa Allah idin abuurtay inaad ku xiraatiin la idinka rabaa in la Soomaal la rabaa in la salaada la rabaa haddaan la soomino la salaadino Allah lagu xireyna guul lama gaarayo mid adduunyada lama gaarayo mid aakhirana lama gaarayo nimanka diinta beenta ka sheegayo ee diinta iyo ku gambada dadka ku dhibaatayhayo idinka gurihiini joogo idinka xaq u dirira idinka dadkiina iyo diintiina difaaco hayo diinta idinka boqolkiiba run sheego hayo beenay ka sheego hayaan waa nima wada mudayma hal dad soo dilay hal dad soo dhacay dalkiisa ka soo cararo waay diintu noo sheegay maxay tahay soo inuu nagalama dhaxayso deegaan nagalama dhaxeeyo wadaman kale ka yimideen kurtood waa dad wada wanteeda oo baxsada inay dadkayna iyo deegaankayna dhibaateeyna kama aqbalayno alla ka cabsada
salaada hal dukada hal soomo mas'uuliyadda kow naftiin inaad ka bilowdiin la rabaa saaxiibada aday kugu seexay waardiye hadaad hayso naftaada inaad mas'uul ka naqato saaxiibka adoo kugu seexdeen nin lagu seexdo ha seexan aad naqato difaaca aad ku jirto waardiye hayso state-kiya kugu hurdaayo Soomaaliya kugu hurdayso qof kasta ee loo dhiibay iridna mas'uuliyadda saaran waxa la idinka rabaa inaad sabartiin waxa la idinka rabaa inaad idinku isdhowrtiin waxa la idinka rabaa amarka saraakiisha iyo mas'uuliyiinta idin hogaamaysa inaad qaadatiin ballantayno waa inaan dalka inta dhiman cadawga ka xurayno diinta iyo dalka iyo dadka inaan u shaqeyno ballan ma tahay cadawga in la diray ballan ma tahay aad iyo aad u mahadsantihiin dufcadii shanaad ee ciidanka daraawiishta dawladda Hirshabeelle sidaas ayuu noogu xiran yahay waxaadna ka mid tihiin ciidamada dalka waxaad ka mid tihiin ciidamada state-ka daraawiishta aad iyo aad u mahadsantihiin